تارو هذا قدومي كسروا عيدا كي سلديقة وطنها وفتي بلارنا وهجامين قدوميها برلمان كجمهورية الصوماليلاند أنا كم إذا هاين حلي بانا كترسن قول لبضة قوله قلت ذي برلمان كيولي بقولها وسير ذي جمهورية الصوماليلاند وقوري وسير كهرمرن تبيها وسير كأولها جود ومدين كيودن بيبا سفر شغل كتشوقي مقالة laascaanood ayna wehelinayaan maamulka heer gobol iyo ka degmada laascaanood ayaa saaka kormeer ballaaran ku sameeyay xarumaha ciidanka bilayska ku leeyahay magaalada laascaanood isagoo u kuurgalaya xaaladda ay ku shaqeeyaan iyo waliba marxaladaha kala duwan ee dhanka amniga ee magaalada laascaanood dhinaca kalena waxay dhagax dhigaan mashruucyo saldhigyo cusub leh oo hor leh oo laga hirgelinayo xaafadaha koonaha magaalada laascaanood sida xaafadda buurtay sayidka iyo waliba xaafadda bisha cas waxaan ugu horeyntii halkaasi ka hadlay kana warbixiya bilayska iyo waliba marxaladaha kala duwan ee ciidanka bilayska ay ku shaqeeyaan taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sool maayirka degmada laascaanood iyo waliba gudoomiyaha gobolka Sool halkani waa meesha markaanu sahlanay ugu baahida badan inay noqoto saldhig boolis dhibaatooyinka aad u jira dhulku waa wada dhul dadweyne oo meel bannaan ma leh nin ka mida muwaadiniinta reer laascaanood oo deegaankan leh waxaanu ka codsannay inuu dhulka naga siiyo magaalada dhexdeedu xidhiidh bay noqotay waa ka weynaysnay koonaa u tahay cabdulaahi cali siciid baa la yidhaahdaa ninkaas waa ganacsada cabdulaahi cali siciid codsi baanu u jeedinay uu naga aqbalay maanta waxaa la dhagax dhigayaa saldhig boolis xaafadda sayidka oo magaalada laascaanood ku taalla oo ka mid ah xaafadaha baahida weyn u qabay in saldhig boolis laga dhiso ilaahay mahadii maanta la dhisayaa dhulkana waxa bixiyey kulli muwaadin taariikhdan xusi doonta haddii lahaydmo dowladduna inay socota ay tahay oo leedahay cabdulaahi cali siciid muwaadinkaana waxaan leenahay halkaad ka soo bixisay ilaahay khayr kugu bedelo qabnay saldhigyahay maanta alxamdulillaah rabbil caalamiin haddii aan dhagax dhigahay inay tahay dhismihii waxaan rajeynayaa in ilaahay noo barakeeyo oo baahidii weyneed ee gobolka iyo degmadu qabeen ay haddii ilaahay meesha ka baxdo wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Suleymaan Yuusuf Cali Koore iyo waliba wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Mudane Cabdirashiid Ducaale Qambe ayaa labadooduba ku dheeraaday ka warbixiyay mashaariicaha ay xukuumadda ku fulinayso guud ahaanba gobolka Sool gaar ahaan magaalada laascaanood kuwaas oo ah qaar wax weyn ka bedeli doona magaalada laascaanood waxay la tahay guddi heer qaran oo hogaaminaya gudoomiyaha golaha wakiilada golaha wasiirada iyo golaha labada gole ee guurtida iyo xilli wakiilada wafti ballaaran oo aan nahay waxaanu kormeer ugu jiray inaanu u kuul galno nabadgelyada deegaanka iyo saldhigyada waxaana ka muuqata kolley inay meesha u baahan yihiin dhammaan in si la dardargeliya nabadgelyada duruufo adag bay askarta ku soo shaqeeyeen oo iska qiyaasi karaynaa dhib badan iyo baro waa garan karaynaa wax badan inaad ku soo shaqayseen waxaa laydinka baahan yahay ciidan badan baa la qorayaa wax badan baa la keenayaa hawl badan baanu gelaynaa intaa ka horeysa inaad wixii hawla sii dardargelisaan unbaa laydinka baahan yahay wadaadka cabdulaahi wadaniga halkan كل يدن جود ولا ولا هاي سجل لفتي سو وهم عندنا برنامج كان نجحنا ما هي سيدا ونقصها بعد اسمه لو بلا يا ويكند لمات كيسا ويك هذا كله عشان دهون بعد شيءنا إنه اسمه بلا ما سلك بوليس سيداس وبدومي ugu dambeyntiina gudoomiyaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax ayaa ku dheeraaday faa'iidooyinka mashaariicda ay u leeyihiin bulshada isagoo baaqna u diray bulshada gobolka Sool iyo waliba ganacsatada inay ka qayb qaataan mashaariicdaasi كل صدحات بالله صدق كل صدحات مدحونا على صدق بلاد بدي كصدحات إلى مدرسة إلهي مركا هذه واحد هذا البوليس يقول كل واحد كعمل بوليس لان يو بوليس ستيشن لان هي كعمل بوليس ستيشن كي والدين بس عيدا كي بوليس كنا
waa la idiin keenaya 300 booliis waa la idiin keenaya marka hadhow dee wixii dhaca idinka mas'uuliyadda idinka ilaa ceebta hadda idinku soo wadaashiraya وأحمد عثمان بطون نمعان أحمد دقال برخد عمر أحمد ورباهنة الدولة الصوماليلاند laascaanood